kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada akhbaaraadka caalamka oo aad kala socotaan Hiil Shacab TV. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar, asxaabtaada la wadaag wararka iyo barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino. Qodobada warkayga aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay xaaladda degmada Balad Xaawo oo shalay ay ku dagaalameen ciidan ka tirsan kuwa Jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya. Mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya oo soo jeediyay in Kenya ciidamadeeda si degdeg ah ay uga baxdo Soomaaliya. Sidoo kale waxaan idiin soo gudbinaynaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gado oo sheegay in lasoo afjaray ciidamadii Jubbaland ee ka dagaalamayay gobolka Gado, isagoo sheegay in ciidamada qaranka ay u qalab qaadanayaan sidii ay u qaban lahaayeen Bu'aale. Sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa Kenya oo la ogaaday in ay ku soo rogi karto dacwad caalami ah xildhibaano dhowaan yimaaday magaalada Muqdisho. Mucaaradkana waxa ay u muuqdaan haatan xisbiyada uu leeyahay in la kala furfurayo xilli laba mas'uul oo muhiim ah ay iska casileen xisbiyada UPD iyo Himilo Qaran. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar, asxaabtaada la wadaag wararka iyo barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada ah aad kala socoto Hiil Shacab TV. Hiil Shacab TV waxa uu ku tiirsan yahay waa taageeradaada. Warkii oo dhan aynu ku horeynay wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya xaaladda degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado ayaa waxa ay sheegayaan in xaalad degnaan oo aan cagab badan ku taagnayn halkaasi laga soo sheegayo. Magaalada Balad Xaawo waxaa shalay dagaal culus uu ku dhex maray ciidamo taabacsan wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan iyo weliba ciidan ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo dowladda Soomaaliya halkaasi ay geysay, iyadoo sidoo kale dagaalkaasi khasaare isugu jira naf iyo maal uu ka dhashay. balse dadka deegaanka oo qaarkood ka barakacay guryahooda ayaa hadda waxa ay dib ugu soo laabanayaan magaalada iyaga oo weli qaba dareen ku aadan in halkaas mar kale dagaal uu ka dhici karo. ila deegaanka ayaa warbaahinta waxa ay la wadaagayaan in xasiloonida aysan cagab badan ku taagnayn xilli kastaana xabad ay bilaaban karto. sidoo kale wararka ayaa sheegaya in degmada Balad Xaawo iyo duleedkeeda gaar ahaan deegaanada dhaca dhinaca xuduudda lagu arkayo ciidamada dowladda oo aad u qalabaysan, kuwa oo laga yaabo in mar kale ay weerar ku qaadaan goobaha ay tuhunsan yihiin in fariisimo ay ku leeyihiin ciidamada daacadda u ah wasiir Janan. dagaalkii shalay dhex maray ciidamada militariga Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland ayaa sidoo kale saameyn ku yeeshay isu socodka magaalooyinka Mandheera iyo Balad Xaawo. qof ka mid ah dadka deegaanka ayaa waxa uu Hiil Shacab TV u sheegay in iminka gebi ahaanba xuduudda dalka Kenya ay xiran tahay. waxaan ka walwalsanahay iska horimaadka ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland. qof waliba kuma fududaanayo inuu dhanka kale u gudbo, waayo waxa isku hor fadhiya ciidamadii dagaalamay oo mararka qaar rasaas goos isku ridaya, waxaana suurtagal ah in aad ku go'doonto dhanka kale. taasina waa cabsi kale haddii aad ka badbaado rasaasta, ayuu yiri qof ku nool deegaanka xuduudda u dhow. inta la og yahay waxaa dagaalkii shalay ku geeriyooday ugu yaraan ilaa 5 qof labada dhinac ka kala tirsan, iyadoona ay ku dhaawacmeen 15 kale oo u badan dad rayda. wararkii ugu dambeeyay waxaa haatan ay sheegayaan in mar kasta la filan karo dagaalkaasi in dib uu u qarxo, iyadoona rasaas goos ah iyo madaafiic laga maqlayo qaybo ka tirsan magaalada Balad Xaawo. lama oga in madaafiicdaas ay soo ridayaan ciidamada daacadda u ah wasiir Janan iyo in ay ridayaan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya, laakiin waxaa weli ka taagan magaalada Balad Xaawo cabsi aad u xooggan. haddaba mas'uuliyiin ka kala tirsan Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxa ay dalbadeen in Kenya ciidamadeeda si degdeg ah ay uga saarto Soomaaliya si xal loogu helo dagaalka ku sii siqaya dhinaca dalka Kenya. xildhibaano ka soo jeeda ismaamulka Mandheera ee gobolka Waqooyi Bari Kenya kana tirsan baarlamaanka dalka Kenya ayaa waxa ay dalbadeen in si degdeg ah ciidamadooda looga saaro gudaha dalka Soomaaliya, isla markaana ciidamada uu hogaamiyo Cabdirashiid Janan si degdeg ah ay uga baxaan deegaanada ismaamulka Mandheera si looga baaqsado in mar kale dhiig uu ku daato ismaamulka Mandheera deegaanada hoos yimaada.
waxaana ay xildhibaanadan sidoo kale dalbanayaan in aan loo dulqaadan karin in lagu duldagaalamo shacabka ismaamulka Mandera oo nabad haystay, iyagoo sheegay in Cabdirashiid Janan oo ku sugan magaalada Mandera tan iyo bishii koowaad ee sanadkan ay dowladda Kenya u gudbiyeen digniino ku saabsan in dagaalka halkaasi ka dhacay uusan ka dhicin, laakiin dowladda Kenya ay ka dhaga furaysatay. waxayna sidoo kale dalbadeen in xilligan loo baahan yahay in si degdeg ah Cabdirashiid Janan iyo ciidamadiisa ay uga tagaan ismaamulka Mandera haddii dagaal ay doonayaan gudaha dalka Soomaaliya ay kula dagaalamaan dowladda federaalka Soomaaliya ciidankeeda. sidoo kale xildhibaanada ayaa sheegay in dowladda dhexe ee Kenya laga doonayo in si degdeg ah ay magdhow u siiso dadka hantidooda iyo weliba naftooda eheladooda ay ku waayeen dagaaladaasi, iyagoo sheegay in dowladda Kenya digniintii ay horey u siiyeen ay ka dhaga furaysatay. waxaana ay sheegeen in xaalad adag ismaamulka Mandera uu wajahayo, islamarkaana ay qiimeen ku sameeyeen dagaaladii shalay ka dhacay magaalada Mandera, islamarkaana ay ogaadeen in dagaaladaasi ay sii socon karaan maadaama Cabdirashiid Janan iyo ciidamadiisa ay weli gudaha ugu sugan yihiin ismaamulka Mandera, iyadoo ciidamada federaalka ay isku dayi karaan inay beegsadaan goob allaale iyo goobtii ay ku sugan yihiin. gudaha magaalada Mandera waxaa ugu dhintay dad shacab ah, rasaas ay labada dhinac isweydaarsanayeen, iyadoona madaafiic la sheegayo qaybo ka tirsan deegaanada dhaca xuduudda in ay ku dhaceen, taasi oo walwal ku abuurtay shacab badan oo Mandera degan. warbaahinta dalka Kenya ayaa tabinaysay in Kenya dagaalkaasi lagu jibiyey, islamarkaana ciidamadii ay taageeraysay si rasmi ah looga adkaaday. isla wararkaas ee beled xaawo ayaynu ku guda jirnaaye ciidamada Kenya ayaa la dalbaday in laga saaro guud ahaanba dalka kadib dagaalkii beled xaawo, iyadoo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ay sheegeen in si qaldan Kenya ay u adeegsanayso ciidankeeda qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM. Senator Ayub Ismaaciil Yuusuf oo ka mid ah senatarada golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa dowladda Kenya ku eedeeyay in ay ku xadgudubtay qaanuunka caalamiga ah ee dunida. Senator Ayub Ismaaciil Yuusuf ayaa sidoo kale sheegay in Kenya ay si qaldan u adeegsatay awoodda sharciyadeed ee ciidanka nabad ilaalinta midowga Afrika oo dalka u jooga inay dowladda federaalka kala shaqeeyaan arrimaha amniga iyo la dagaalanka Al-Shabaab. Kenya waxa ay ku xadgudubtay qaanuunka caalamiga ah, waxa ay si xun u adeegsatay awoodda sharciyadeed ee AMISOM sababo ku aadan kaalinteeda wiiqida deganaanshaha Soomaaliya. xadgudubyadeeda aadka u xun waxaa ka mid ah duqeyn ay la beegsadeen goobo rayidka ay ku nool yihiin iyo xarumo ganacsi, ayuu yiri Senator Ayub Ismaaciil Yuusuf. waxaa kaloo uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay u dulqaadatay in badan oo isku dayo burburin ah ay Kenya waday, oo sidoo kale uu sheegay in isku dayadaasi si toos ah looga arriminayay magaalada Nairobi, isagoo ka duulaya dagaalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay degmada Beled Xaawo ee gobolka Gadow. ayuu xusay in ay iminka Kenya taageerayso maleeshiya beeleed oo sida uu sheegay horkacayo Cabdirashiid Cabdinuur Xasan Janan, wasiirka amniga Jubbaland ee dowladda federaalka Soomaaliya baxsadka ka ah. waxaan u dulqaadanay in badan oo isku dayo wax burburin ah oo ka imaanayay dhanka Kenya. hadda waxaan taageeraynaa cid kasta oo Kenya wax ka qaban karta. hadda waxa ay taageeraysaa maleeshiya beeleed hubeysan oo uu hogaamiyo Cabdirashiid Janan oo baxsad ka ah cadaaladda, isaga oo loo haysto inuu galay dambiyo ka dhan ah bini'aadanimada, ayuu senatarka ku sii daray hadalkiisa. qoraalka oo uu kula wadaagay bartiisa Twitter-ka shacabka Soomaaliyeed ayuu ciidanka xoogga dalka iyo weliba ciidamada kale ee taageeraya ee howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ku dhiirigeliyay in ammaanka dalka ay xaqiijiyaan, isagoona Kenya si gaar ah ugu eedeeyay in iminka ay taagan tahay xilligii ay si rasmi ah awoodda Soomaaliya u arki lahayd. waxaana senatarkan uu codsaday in Kenya iminka wixii ka dambeeya la eego awoodeeda, islamarkaana ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya shalay cashir ay u dhigeen ciidamada ay taageerto dowladda Kenya iyo weliba ciidanka militariga Kenya oo in badan isaga baxay magaalada muhiimka ah ee ismaamulka Mandera.
xildhibaanadii Kenyaanka ahaa ee dhawaan yimid magaalada Muqdisho ayaa laga cabsi qabaa inay wajahaan dacwo qiyaameen qaran ah xilli tani ay u muuqato in dabin siyaasadeed oo Kenya ay diyaarisay ay tahay. Afhayeenka baarlamaanka Kenya Justin Muturi ayaa sheegay in xildhibaanadii tagay magaalada Muqdisho aysan qaadan fasax isla markaana aysan marin nidaamka sharciga ah ee dastuurka dalkaasi uu qabo. Shalay uun ayaa la ii sheegay Axadii balse wax fasax ah ima weydiisan xitaa ilama socodsiin ayuu Muturi Isniintii u sheegay wargeyska Daily Nation. Sida uu qoray wargeyskaasi, xeerka baarlamaanka Kenya ee 260 ayaa dhigaya in xubnaha u safraya dal kale haddii ay tahay rasmi ama mid iyagu u gaara ay qasab tahay in qoraal ogeysiin ay u diraan afhayeenka. Waxaa sidoo kale laga doonayaa in ay sheegaan taariikhda safarkooda, muddada ay maqnaanayaan oo dalka dibaddiisa ay joogayaan, iyo halka lagala soo xiriiri karo inta ay maqan yihiin. Sidaa daraaddeed, xildhibaanada ayaa hadda lagu waramayaa inay jabiyeen sharciga oo ay booqdeen dal Kenya ay u aragto cadow, sida wargeyska Daily Nation uu daabacay. Haddii aqalka baarlamaanka ay xildhibaano kale ama shacabka u soo gudbiyaan codsi ku aadan in arrintan baaritaan lagu sameeyo, guddiga awoodaha iyo mudnaanta baarlamaanka ee uu hogaamiyo afhayeenka ayaa baaritaan rasmi ah ku sameyn doona. Waxaa suuragal ah in xildhibaanada lagu soo oogo dacwad la xiriirta qiyaamo qaran oo micnaheedu yahay inay la safteen dal dagaal kula jira Kenya, sida lagu qoray wargeyskan caanka ah. Waxaa sidoo kale lagu soo oogi karaa dacwo ku saabsan in ay u jaajuuseen dal kale dalkooda xilli ay jiraan warar la isla dhex marayo oo ku saabsan in magaalada Muqdisho ay kula kulmeen madaxa sirdoonka qaranka Soomaaliya. Safarka xildhibaanada ayaa sidoo kale lagu wargelin wasaaradda arrimaha dibadda Kenya, taasi oo shaki badan keentay, inkastoo xildhibaanadaasi ay sheegeen in iyagu ay amar toos ah ka qaateen madaxweyne Uhuru Kenyatta, amarkaasna uu salka ku hayay in ay la tashiyo la sameyn karaan mas'uuliyiinta ugu sareysa Soomaaliya si wax looga qabto weerarada Al-Shabaab sida joogtada ah ay uga fulinayaan meelo badan oo ka mid ah gobolka Waqooyi Bari Kenya. Waxaana la sheegay in taasi ay dad badan sidoo kale u arkaan in markaasi aysan caddeyn u noqon karin in xiriir wanaagsan ay leeyihiin xildhibaanadan iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Xagga iyo wararka Beled Xaawo haddii aynu dib ugu laabano, Mareykanka war ayuu ka soo saaray dagaalkii ka dhacay Beled Xaawo. Dowladda Mareykanka ayaa baaq ka soo saartay dagaalkii ka dhacay xuduudda labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya. War ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa loogu baaqay dhinacyada in ay dagaalka joojiyaan isla markaana waan ay ku raadiyaan arrinta. Ambassador Yamamoto iyo safaaradda Mareykanka waxay ugu baaqayaan dhammaan dhinacyada inay ka fogaadaan iskahorimaadka hubeysan ee ka socda Beled Xaawo, ayaa lagu yiri qoraalka oo sidoo kale lagu daabacay bogga Twitter-ka ee safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay Muqdisho. Ayaa waxaa loogu baaqay dhinacyada hoggaanka haya in ay miiska wadahadalka isugu yimaadaan. Waxaan ugu baaqaynaa in xal nabadeed laga gaaro khilaafka. Hogaamiyaasha labada dhinac waxaa loo baahan yahay in ay samir muujiyaan oo ay ka faa'iideystaan waxtarka ummadda Soomaaliyeed ee ay ku nool yihiin, ayaa lagu yiri qoraalkan. Mareykanka ayaa ku soo koobay hadalkiisa oo keliya in loo baahan yahay in labada dhinac ay isku dulqaataan. Ugu dambeyntiina, haddii aynu eegno xisbiyada Himilo Qaran iyo UPD, caqabado hor leh ayaa soo wajahay xilli laba mas'uul oo heer sare ah oo ka soo jeeda deegaanada Somaliland ay ku dhawaaqeen in gebi ahaanba ay isaga baxeen xubinnimadii xisbiyadaasi. Laba ka mid ah xildhibaanadii ugu cuslaa ee xisbiyada UPD iyo Himilo Qaran ayaa mar qura ku dhawaaqay inay iska xasileen xilalkii ay ka hayeen xisbiyadaasi ayna ka baxeen. Xildhibaan Cabdifataax Daahir Ismaaciil ayaa warqad uu soo saaray ku sheegay inuu iska casilay xilka gudoomiye ku-xigeenka xisbiga UPD kana tagay xildhibaanadii xisbiga uu ka hayay xubintaasi oo ahayd xubin muhiim ah. Warqadaas la mid ah oo uu soo saaray
isna xildhibaan Xuseen Carab Ciise ayuu isaga casilay guddiga fulinta himilo qaran kana baxay xisbigaasi. Xildhibaanadan ayaa ku doodaya in maqaamka iyo qaabka ay wax u wadaan xildhibaanada iyo guud ahaanba xubnaha ku jira xisbiyadan aysan ku qancin, isla markaana ay go'aansadeen in gabi ahaanba ay isaga baxaan. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, subscribe saar, asxaabtaada la wadaag wararka iyo barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada ah aad kala socoto Heel Shacab TV. intaana waxaa inooga idil warkii caalamka oo aad kala socoteen Heel Shacab TV. Tani inteenu dib ugu kulmi doono warkan kan xiga. Nabadgelyo.